diyaarad qaas ah oo siday taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Jimcaale Jaamac Takar iyo sidoo kale saanado ciidan ayaa ka degtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wararka ka imaanaya magaaladaas ayaa sheegaya in diyaaradan oo ahayd mid qaas ah ay waday taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kalena waxaa la socday dad u badnaa saraakiil ciidan oo qaybtan ka tirsan. xogtu waxay intaas ay ku dareysaa in sidoo kale diyaaradan ay siday saanado ciidan oo loogu talagalay ciidanka qaybta 54aad ee hoostaga taliye Jimcaale Jaamac Takar oo la filayo in Laascaanood uu goordhow ka ambabaxo. wararku waxay intaas ay ku darayaan in taliyaha uu ka dhaqaaqayo magaalada Laascaanood sidoo kalena uu u jiheysanayo dhanka magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland halkaas oo ay joogaan ciidanka uu maamulo. sidoo kalena ay ku leeyihiin mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanada Puntland. taliye Jimcaale Jaamac Takar oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulamo gaargaar ah uu la qaatay madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana loo magacaabay in taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu noqdo kaas oo dowladda Soomaaliya ay doonayso in mar kale qaybtan ay dib u soo nooleyso. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. waxaa la filayaa taliyaha inuu dhawaan si degdeg ah uu u bilaabo howlgallada lagula dirirayo argagixisada sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan deegaanada Puntland waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu eebeedmo.